waxaan jawaab kooban ka odhanayaa iyadoo si faahfaahan aan uga hadli doono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shalayta munaasabadii tiina la midka ahayd waxa uu kaga hadlay barnaamijka siyaasadeed ee qaranka Soomaaliland ee ku wajahan nidaamka doorashada soo socota iyo hanaanka axsaabta iyo ururada siyaasadeed ee maxaan ku dhaadayay Soomaaliland jawaab bay maanta ka bixiyay xisbiga wadani musharaxa Ciro waxa uu leeyahay ururo xisbiyada maanta jira waa kulmiye iyo wadani iyo ucud noqon maayaan ururo siyaasadeed mana suurtoobo urur ka qaybgeli doona doorashada 13 November ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland horta marka ugu horeysa sida madaxweynuhu uu sheegay xisbiga kulmiyana uu cadeeyay marna lagama maqal madaxweynaha Soomaaliland doorashada 13 November dhacaysa dib ha noqoto madaxweyne xisbiga kulmiye intuba waxay diyaar u yihiin in doorashadu xilligeeda ay ku dhacdo ururada siyaasadeed waxa qeexaya oo dhigaya xeerka la yiraahdo xeerka 14aad law number 14 ayaa qeexaya xeerka waxa la ogolaaday xilligii uu mudane Cabdiraxmaan Ciro uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xeerka la ogolaaday goormu xeerkaasi xaraan noqday goormu Cabdiraxmaan Ciro xaraan ka noqday wuxuu xaraan ka noqday markii uu baarlamaanka ka baxay ee uu musharaxa xisbiga wadani noqday ayuu isaga ka xaraantimoobay xisbigooda xeerkaasi waa xeer qarankan ka jira madaxweynahan baabiin karin xisbiga kulmiyaan baabiin karin xisbi kalaan baabiin karin xeerkaasi waxa uu kaga bixi karaa halka uu maanta xeerarka qaranka kaga jiro dariiqada loo maro ee uu xeerka ku noqday marka dib loogu celiyo xeerkaasi waa xeer maanta jira xisbiga kulmiye wuxuu ka mid noqonayaa xeerka iyadoo la raacayo ururada wadani kuwaasuu ka mid noqonayaa